asalaamu calaykum asxaabta soo dhowaada. Waa habeenimo talaada oo arbaca ay soo gelayso. 21 ayaa sii dhammaanaya, 22 ayaana la gelayaa. Ninka Trump uu u xil saaray arrimaha xadka iyo masaafurinta Tom Harman ayaa saaka warbaahinno kala duwan la hadlay amaba maanta la hadlay. Isagoo aqalka cad joogo ayaa waxa uu la hadlay telefishinka CNN-ka, iyadoo sidoo kalena warbaahinta Fox News oo Trump aad u taageersanna sidoo kale uu xaruntooda ugu tagay New York oo sidoo kale uu la hadlay. Tom Harman waxaa la weydiiyey arrimo dhowr ah oo ku saabsan arrimaha isaga loo xil saaray oo ah masaafurinta iyo soo qabqabashada dadka sharci darrada ah ee waddanka ku sugan. Tom Harman su'aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ah howlgalkii soo qabqabashada dadka sharci darrada ah ma bilowday? Ha ayuu yidhi, waxaanan muhiimadda saarayna ayuu yidhi dadka khatar ku ah ammaanka qaranka. Waxa uu yidhi qof kasta oo ammaanka qaranka shacabka Mareykanka iyo weliba ammaanka qaranka khatar ku ah gacanta ayaan ku soo dhigaynaa. Waxaan bartilmaameedsanaynaa ayuu yidhi marka ugu horreysa wejiga koowaad dadka dembi la xiray oo dembi lagu helay oo la xukumay oo xabsiyada ku jira, walow qaar magaalooyinka dimuqraadiga ah arrintaasi diidan yihiin. Dadka xabsiyada ku jira ay noo diidan yihiin inaan xabsiyada kala soo baxno oo aan masaafurino ayuu yidhi. Laakiin waxaa la yidhi dadkaasi xaggeed ka helaysaan? Su-aasha la weydiiyey ay ahayd. Wuxuu yidhi waan garanaynaa halka aan ka helayno, ciidamada ICE-na waa ay garanayaan halka ay ka helayaan. Sidoo kalena waxaa la yidhi maxay maanta oo talaadaha ay uga bedelneyd shalay iyo maalintii ka horreysay? Wax badan ayay uga bedelantahay ayuu yidhi, waayo howlgalkeennii soo qabqabashada si toos ayuu u bilowday, guud ahaan waddanka ayuu ka socdaa. Ma doonayo ayuu yidhi inaan meel gooni ah cayimo sababo la xiriira ammaanka ciidamada howlgalkan fulinaya. Laakiin waxa uu yidhi guud ahaan waddanka waa uu ka socdaa. Sidoo kale waxyaabaha la weydiiyey waxaa ka mid ahaa dadka marka aad qabataan kadib maxaad ku samaynaysaan? Waxuu yidhi marka ciidamada dadkaasi waa la soo qabanayaa, waa la process garaynayaa, waa la xirayaa. Markaas kadib waxaa loo diyaarinayaa waraaqihii travel documentiga oo lagu masaafurin lahaa. Haddii wadamadoodu lala xiriiraya, haddii ay aqbalaan waa ka, haddii ay aqbali waayaanna waxaa jira qorshayaal kale oo ah wadamo kale oo aanu bandhignay oo safe third country ah. Iyo sidoo kalena qorshayaashaasi ayaa noo degan ayuu yidhi in aan wadamadaasi kala geyno haddii wadamadoodu aysan aqbalaynin. Trump wareegtooyinka uu saxiixay oo dhinaca xadka keliya ku saabsan waxay ahaayeen inuu horta xaalad degdeg ah uga dhawaaqay xadka, inuu sidoo kale soo gabagabeeyey birthright citizenship oo ah dadka waddanka ku dhashay islamarkiiba in muwaadin noqonayeen. Inkastoo hadda 22 gobol ay arrintaasi dacwad ka gudbiyeen oo yidhahdeen dastuurka ayuu Trump ku xadgudbay. Waxaa ka mid ahaa siyaasaddii catch and release oo qabashada dadka marka la qabto waddanka lagu soo daynayay. Waxaa sidoo kale remain in Mexico, siyaasaddii ahayd in Mexico dadku ay ku sugaan marka kiiskooda ilaa iyo karsooruhu go'aan ka gaaray. Sidoo kale siyaasaddaas Trump dib ayuu u soo celiyey. Waxaa sidoo kalena ka mid ah in ururada daroogada ka ganacsada in uu u aqoonsaday ururo ajnabi ah oo argagixiso ah. Sidoo kalena wuxuu yidhi ciidamo ayaan xadka geynaya. Abkii CBP1 gabi ahaanba uu soo gabagabay. Intaasoo tallaabo ayaa Trump wareegtooyinkiisa oo xadka keliya ku saabsan ayay ahayd. Haddaba Tom Harman waxa uu leeyahay howlgalkeennii soo qabashada dadka sharci darrada ah waan bilownay. Waxyaabaha kaloo yidhi waxaa ka mid ahaa su-aasha la weydiiyey dadkaasi ay bartilmaameysanayaan ka waran dad kale oo sharci darra ah hadday meel wada joogaan. Waxa uu yidhi iyaga nafsad ahaantooda waan la soo qabanaynaa haddii ay waddanka sharci darro ku joogaan oo qofka aan raadinayno aan ku helno in dad kale oo sharci darro ah ay la joogaan goobta aan ka soo qabanayno, iyagana nafsad ahaantooda waan soo qabanaynaa. Laakiin sida hadda uu muujinayo waxa uu muujinayaa in dadka ay bartilmaameysanayaan ay yihiin dadka waddanka dembi ka galay, ammaanka qaranka iyo ammaanka shacabkana khatar ku ah. Haddaba Tom Harman oo arrimahaasi ka hadlayay bal ila daawada. No, it started. ICE teams are out there as of today. We gave them the direction to prioritize public safety threats that we're looking for. So we've been working up the target list. ICE, they're out there enforcing law out today. And of course, as I've said numerous times, they're concentrating on public safety threats. That'll be our priority right out of the gate. So ICE officers are back to doing their job. Well, look, I wouldn't call them raids or target enforcement operations. They know exactly who they're looking for. They know pretty much where they'll find them. So again, these are well-planned operations. They're well investigated, so they have a lot of backup information when they go out there. A whole team goes out for officer safety concerns. So this happens throughout the nation. I mean, I'm not going to tell you specific locations out of officer safety concerns, but ICE is back doing their job effective today. They haven't been able to do it for years. Yes, people in the country illegally, they have a criminal conviction that makes them a public safety threat. That's our priority. Again, these ICE officers across the country have a 90-10 docket. They know who these people are.
When they don't show up in court, they fail to leave as ordered by an immigration judge, or they have, NCIC information on someone who was arrested for a violent crime here that's in the country illegally. They take those leads, they do investigative work, and through that work, try to find out where these people may be located, and that's the whole investigative piece they do before they go out and actually make an arrest. That's the target of this operation. But like I said many times, in places like sanctuary cities where we can't arrest a bad person in the jail, we would like to have access to the jail to arrest a criminal alien in the safety and security of a county jail, which is safer for the community, safer for the officers, and safer for the alien. But when you release a public safety threat out of a sanctuary jail and won't give us access to him, that means we got to go to the neighborhood and find him. And we will find him. But when we find him, he may be with others. Others that don't have a criminal conviction but are in the country illegally, they will be arrested too. Because we're not going to strike, and this is the difference between the last administration and this administration. ICE is going to enforce the immigration law. There's nothing in the INA, the Immigration Nationality Act, says you got to be convicted of a serious crime in order to be removed from this country. So there's going to be more collateral arrests in sanctuary cities because they forced us to go in the community and find the guy we're looking for. What I'm telling you is when we go find our priority target, which is a criminal alien, if he's with others in the United States illegally, we're going to take enforcement action against him. We're going to enforce the immigration law. Well, what happens after arrest? They're taken to an ICE office and they're processed and put in detention. While they're in detention, ICE officers work on travel documents. The host country sends travel documents saying, yeah, this is our citizen, this is our national. Then we make flight arrangements. So they could be in detention from a few days for a few weeks until that removal is made happen. We have various plans. Other countries are willing to take them. We have third safe country removals. So that's something we're working through. But I think you're going to see less of the recalcitrant countries that won't take their citizens back under this president, because this president has vowed that these countries will take them back. So I'll leave that up to the White House, but there will be negotiations with those countries who are pushing back on recalcitrancy. Tom Homan ayuu ahaa oo Trump uu xil saaray arrimaha xadka iyo masaafurinta oo sheegayay in howlgalkii ciidamada ICE dadka sharci darrada ah waddanka uu soo qabqabayeen oo bilowday, laakiin waxa uu leeyahay wajiga koobaad waxaan ku bartilmaameedsan doonaa dadka dambiyada waddanka gaga oo la xiray, dambi lagu helay, xabsina ku jiro, iyo sidoo kale kuwa iyaguna maxkamadaha aan soo xaadirin oo ballamihii maxkamadaha gambiyay ayagana sidoo kale waa ay ku jiraan. waxa uu yiri qofkii garsoore intoo u ballansanaa inuu ka soo hor muuqdo imaan waaye oo gambiyay, arrintaas sidoo kale waa ay ku jirtaa dadkan soo qabanayna ayuu leeyahay. marka dad fara badan oo waxa jiro ICE ballan la leh, marka haddii aad tagto ballantiina waxa laga yaabaa in lagu qabto, haddii sidoo kale aad gambisana kaba sii daran oo waa lagu soo raadinaya halka aad joogto ayaa lagu imaanaya ama goobtaada shaqada ama gurigaada ayaa la yaqaana. marka sidaasi ayuu leeyahay ninkii Tom Homan waxyaabaha kale ee soo kordhan haddii aan leedno waa dila soo socodsiin doonaa. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta.